السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawada waan ku soo dhaweynayaa waxaana kugu soo dhaweynayaa muuqaalo inoo noqon doona taxane muuqaaladan oo ka sheekeynaya buugaas oo lagu magacaabo xasuusihii Guantanamo. waliid maxamed xaaji oo ah qoraaga buuga isla markaana ay ku dhacday qisadu isla isaga waxa buugan afka Soomaaliga ku tarjumay Cabdicasiis Maxamed Iimaan horeyna hordhaca tarjumaaga waliid maxamed xaaji maalina qorshaha kumuu darsan inuu si noolaan doono marka loo eego wixii uu la kulmay ee uu indhihiisa ku soo arkay waana si badan sabanku ugu hiiliyay in uu sooyaalka ku darsado sadar door ah sanadkii 1974 ayuu ku dhashay mid ka mid ah tuulooyinka waddanka Suudaan isaga iyo qoyskiisu sanadkii 1983 ayay u guureen caasimadda Suudaan ee Khartoum kadib markii uu dhameystay waxbarashadii dugsiga sare wuxuu ku biiray kulliyadda shareecada balse duruufaha nololeed ayaa u saamixi weyday inuu jaamacadda sii wato wuxuuna u boqolay Sacuudiga markii uu Sacuudiga ka shaqaynayay muddo 3 sano ah ayuu ku biiray ururka tabliiqa wuxuuna go'aansaday in uu tago Pakistan si uu dacwadda u soo fidiyo ka hor inta aanu Suudaan ku noqon si uu u soo guursado wakasa waxay isbedeleen markii uu gaadhay magaalada Lahore ee dalka Pakistan sanadkii 1999 oo uu sii gudbay dalka Afghanistan isaga oo ku guuray ururka dhaqdhaqaaqa Taliban markii 2 sano ku dhow ka barbar dagaalamayay ururka Taliban ayuu mar kale go'aansaday inuu ku laabto dalkiisa Suudaan si uu u soo guursado balse dhacdooyinkii 11 Sebtembar ayaa dhacay wuxuu ku sii nagaaday Afghanistan taasi oo qadarku u suuro geliyay in uu u soo joogo mid ka mid ah riyadii xumaa ee dhaca kadib markii Mareykanku ku soo duulay Afghanistan xasuuqaasi oo ahaa xasuuqii qalcadda Jangi kadib waxa gacanta ku dhigay xoogagii Mareykanka waxaana loo dhaadhiciyay xabsiga Guantanamo oo ka mid ah xabsiyadii ugu xumaa xilliga halkaasi oo uu ku soo qaatay ku dhawaad 7 sano buugan ayuu ku qaadaa dhigayaa xusuus qorka xilliyadii hore ee noloshiisa xasuuqii uu u soo joogay ilaa xabsigii Guantanamo ee cabsida badnaa waliid hadda waxa uu ku nool yahay waddankiisa Suudaan xidhiidh aanu la sameynay wuxuu si rasmi ah iigu ogolaaday in aan af Soomaali u tarjumo xasuus qorkiisan ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in uu buugani soo baxo waxaan si ugu mahadnaqayaa saaxiibaday Rashiid Maxamed Ismaaciil Jaamac Cabdirasaaq Boorle iyo Cabdixakiin Obsiye mahadiina iyo abaalkiina waxaan ku soo afmeerayaa murtidii hore loo yiri abaal iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedelay beerka ka ogsoon qoraaga oo hadalkan ku bilaabay ayaa waxa uu yiri waxa maragma doona in xaaladaha nololeed ee kula soo gudboonaada ay marar badan kugu qasbayaan inaad diiwaan gelisid waa muhiim in la diiwaan geliyo si faca ku xiga uu sii gudbiyo sidoo kalena ay ahaato qayb ka mid ah taxanaha sooyaalka sida darteed akhriste waxaan ku soo gudbinayaa xaalado iyo tijaabooyin nololeed oo aan soo maray waxaan daha kaaga faydayaa dhanka madow ee siyaasadda Mareykanka ee uu kula macaamilo dunida Islaamka sida caadiga ah fal kasta waxa uu leeyahay falcelin iyo jawaab duulaankii Mareykanku ku qaaday maamulkii Taliban ee ka dhisay Afghanistan waxa ka dhashay iska caabin wuxuu maamulkii Bush ku dhawaaqay dagaal lagu magacaabay la dagaalanka argagixisada gaar ahaan wixii ka dambeeyay dhacdooyinkii 11 Sebtembar 2001 waxaa siyaasad laga dhigtay awoodda iyo qori caaradii
iyadoo lagu marmarsiyoonayo dib u soo celinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee ay sheegtaan. waxa ay islaamka ku shaambadeeyeen inuu saldhig u yahay argagixisada. maamulkii Bush waxa uu adeegsaday xeelad kasta oo uu duulaan ugu qaadi lahaa xogaga iyo sidii loo burburin lahaa hantidooda, khayraadkoodana loo dhici lahaa. dad aan waxba galabsan ayaa lagu guray xabsiyada Qandahar, Guantanamo, Abu Ghraib iyo xabsiyada qarsoon ee Yurub iyo wadamada Carbeedba. waxaan ka mid ahaa dadkii xabsiyada lagu guray. waxaan la noolaaday nooc kasta oo bahdilaad ah oo Maraykanku u geystay sharaftaydii, isagoo iska indhatiraya xeerarka iyo heshiisyada ilaalinta xuquuqda aadanaha. waxaan akhristayaasha sharafta leh u soo gudbinayaa noloshii adkayd ee aan kala soo kulmay Afghanistan iyo xabsiga Guantanamo ee Cuba. waxaan soo ururiyay iyadoo aanay wax been abuurahi waxaan rajaynayaa in aad ii cudur daartaan qaabka aan u soo gudbinayo dhacdooyinka, waayo sidoodii ayaan idinku soo gudbinayaa anigoon qurxinin oo aan naashnaashin, sababtoo ah ma ihi qoraa xirfadiisu sarrayso keliya, waxaan ahay goob jooga sheegaya wixii uu soo arkay. alle ayaana weydiisanayaa inuu i waafajiyo. waliid maxamed xaaji waa qoraaga buuggan, sidaas ayuu qoraagiisii hordhaca ahaa ku yidhi. intaas ayay inoogu joogtaa xalqadda maanta. insha allah intaan xalqadsan oo kale ana ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.